Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace and the blessing and the mercy and the bounty of Allah be upon you. Barakadi Ilaahay, rahmadi Ilaahay iyo maxallan wax walbo naxariisa iyo wax walbo barka dushina ahaato walaalahayga oo ku hadlo afka Soomaaliga waxa rabaa maanta inaan iga kaciyo hurdada sida walaalkeena xaliya oo nigu tilmaamayo daayar baa jira daayar waxa ku bixi kartaa daayarnimadu ninkan sheegay ma kugu cusubta dad waxa ku dhahay where have you been waxa la aniga daayar baan jira waan ka baxay amiin hadaa su'aal weydiis daayarnimadu waxa ku bixi kartaa wuxuu ku leeyahay hear me out waa ina joojisa waa ina naga wiliga ka amar qaadan waa inta maanta dhan hooyada dhashay asiga laga yaabo inuu dhaxo inuu dhali doono inay la dhalatay buu ku xad gudba solution kuma keenay sida darteed amiin maxaliya kugu horeyso dad daayar noqdo. Have you never heard before asxaabu sabti ana asxaabu sabti kuma ahaayeen asxaabu sabti waxay ahaayeen asxaabtii oo xilliga reer bani Israa'iil jiray oo go'aan gaaray inay Ilaahay caabudaan oo maalin yeeshtaan maalintaasna ay sabti ay noqoto. So maxaa meesha ka dhaca marka asxaabu sabti go'aan bay soo gaareen maalin kasta iska caabudu karno Ilaahay wax kasta iska sameey karno waa ka mashquulina hal maalina Ilaahay si fiican u caabudno ya oo wax dhan ay shaqo ka mashquulno aan sameysano maalin sabti bay sameysteen laakiin se waxay hilmaameen حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. The man can think that they will say we believe and they will never be tested. That كم هي أمليان إن ده وآمنا الله yeah that they will never be tested. مرنا بالامتحان من إله بحيره ولقد فتنا الذين من قبلهم. كوبيد إنكوري واو امتحاننا ولا يعلم أن الذين صدقوا سلوا ويارون شيئا ولا يعلم أن الكاذبين. سيدا درت أصحاب السبتي maalmiye fiish waxay ahaan jireen dad malaay dabatay maalmiye malaay dabada jireen oo dhan oo Ilaahay ka siiyay jiq maalinta Ilaahay caabudu lahayn malaayga way soo badiyay Allah subhanahu wa ta'ala sabti soo badiyay way yaabeen so they think they deceive in Allah maalin sabti marka la habeenkeeda shabaqay tooranayaan subaxi marka la soo kaco oo sandeede malaayga saas ku xadaayaan waa la ogaaday dad ba ogaaday waxaana sameeyeen qalad waaye Ilaahay ma qiyaamaysiin nafsiyaashiina qiyaamanina marka waxa dhacday inay dhageyso waayaan asxaabtooda dadka kamid ah wanaag u sheegi jiray markaas is dhaga tireen ba Ilaahay ku caasiyeen caasinimada Ilaahay ku caasiyeen maalmaha kamid ah dadkii baa waa la waayay albaabka la soo gargaraaca wax furaaya male marka albaabka lagu jibiyo oo guriga la soo galay oo qof walba cid walba cideeda ay soo xasuusatay dadkii markay kala baxeen waxa arkeen dad ma wajooga meesha daanyaryaal ah wajooga caasinimada Ilaahay ku caasiyeen bay daanyar noqdeen la soco baartito insha Allah.